ma ahan munaasabad gaar ah oo ay iskugu yimideen, mana ahan ziyaaro oo keliya, balse kuwan waa tiro dad badan oo wata astaan diinteeda quruxda badan, qalbiyadoodana uu ka buuxo hilowga ay u qabaan ka qayb qaadashada qayb ka mid ah ziyaarada allaha u naxariistay Sheekh Xuseen Cadde, caalimkii gobolka Banaadir, oo maanta lagu qabtay barxadda Boondheere agagaarka degmadaas oo ay soo xaadireen kumanaan dadyow kala duwan ah. Sheekh Xuseen Cadde, allah u naxariistee, waxa uu ahaa caalim weyn oo Soomaaliyeed, magac weynna ku leh mujtamaca Soomaalida, waxaana ka faracmay culimo waaweyn oo iyana ku guda jira faafinta diinteenna suuban oo ay ka qaateen sheekha. Galabta waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbaxa ziyaarada Rabbi ha u naxariistee Sheekh Xuseen Cadde, waana banaanbax kii ugu weynaa oo aynu aragno waayahan. Culimo iyo xertooda, dad kale oo weligood aad u jeclaa Sheekh Xuseen Cadde ayaa qayb ka ahaa banaanbaxa ziyaarada Rabbi ha u naxariistee sheekha, waxaana galabta banaanbaxa ka soo qayb galay dariiqada Axmadiya, gaar ahaan Raxmaaniya, kuwaa oo u istaagay oogidda dikriga Allah, kaas oo soo gaaray ilaa maqribnimadii galabta. waa kuwan qaar ka mid ah mashaaikhdii ajillada ahayd ee ka soo qayb gashay banaanbaxa oo ka sheekeynaya taariikhda allah u naxariistee Sheekh Xuseen Cadde. وحماد اسكال إلهي نسوى في زيارة شيخنا العالم العلامة العارف بالله سيدي ضيفة الصوفية علما وعملا في عصره شبيه جنيد كأنه جنيدو عصره وسيد المفسرين شيخنا شيخ حسين عدي أو اللي علمي سي عرفان تيس وحوش بها إمام الجنيدي حاجة شيخ العلماء يكون شارين إنه البخاري وعصري في الحديث وفي سننه حاجة فقه أنا يكون شارين إنه يهي النووي عصره إنه يهي إمام النووي زمن كيسة حاجة تصوف كان شاقنا أو سيد الضعيفة الصوفية علم وعمل الجنيدي وغدادي شبيه سواهي دهان حاجة بركة إيه خير كان موت الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني سي أحمد بن السيس شبيه هو دواي ليري شيخ أو شيخ الشريعة شيخ الطريقة شيخ الحقيقة شيخ العلم والعرفان شيخ الإسلام جميعا كنت أحد إلهكم من استي ومد الإسلام كجاردتك الصوماليات شيخ حسين عدى أيامات جوجنا حضرة دي سيارة دي لواتي سجالات واحد جوجا سيدا أوجه الدين وكمان كون أو الله أقدر إني حضرة الشيخ يمادين وحق ربي لقى وعي قول مكينين بايلو مكينين في بروا الله مدرين في طلوا مدرين وحكوا يمادين محبة يكون يمادين ضد إلهي رالي كان غدا هالكا اسكو يمادي waxaan baad ilaahay ugu mahadcelinaynaa inuu naga mid dhigay laxdada tan barakaysan عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة لما أهل الدور الصوفية مالكست جوجان ما أنت وحي السوق مادين أنا كقيب قاتان زيارة الشيخ حسين عدي oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheere xaafo barxadda Waamo ee u dhow Sheekh Cambare marka dhamaan ahludur suufiya oo meeshan isugu imaaday inay ku ziyaartaan sheekooda Sheekh Xuseen Cadde oo kamid ahaa mashaayikhdi oo ugu weynaa dalka ee laga aflaxay diinta islaamka ee ahaa daaciga weynaa ee laga bartay diinta fiqiga iyo xadiiska iyo tafaasiirta laga bartay ayaa maanta waxa isku yimid ahludur suufiya marka ziyaarada sheekheena Sheekh Xuseen Cadde waxa leenahay maqbuul Allah nooga dhigo muraadaadka Allah ku sahlo أي متقان هذا كي يسوي تهنيه هيان هدي لفيريو آخرنا وحال إلهي كو أبال جدا هالليل بالشفاعة لمن أراد من إخوانهم وبإصغاء من حول نبيهم وبجوار النبيين في أعلى عليين في الجنة وبذل العرش يوم لا ذل إلا ذله
intaasaa lagu abaalgudayaa dadka zaa'iriintaana waa la qabaano oo dadka axbaabullaahi la yidhaaho mashaa'ikhda jecel iyagana waxaa lagu abaalgudayaa ha la yidhi maalinta qiyaama haddii la tagaa la yidhi bishafaacati liman araada min ikhwaanihim wa biisraa'in xawdi nabiyihim sala allahu calayhi wasallam oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xawdka hore inay ka waraabaan sheekhaas waxaa waaye waa ka dhan yahay in la tilmaamo in la tacriifiyo banaadir iska dhaafa soomaaliya oo dhammow ou xadi ku yeeshay ou nasiib ku yeeshay ou inuu diinka ilaahay ku faafiyo dadkaan u jeediin dhammaantood kuwa maqanaa ka badan oo ilaahay dartiis ou kelimadiisa u kor yeelay asagana waa ku liibaayey dheef waxaa ugu filan qiimo iyo qadar iyo karaamo waxaa ugu filan dhaxalka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo meeshaan oo ugu tegey dadkan uu barbaariyey dad ka horreeyey oo barbaariyey insha allahu tacaala ilaa qiyaami saacana go'i maayaan khayrkan khayr go'aaya ma ahan maxaa yeelay diinka soomaaliya oo dadka ahlulaahiga waxuu ka yimid meeshaan uu ka soo burqaday sheekh xuseen cadde waa ziyaaro weyn oo loo dhigay caalimkii gobolka banaadir sheekh xuseen cadde sanadkan 2023 waana bannaanbaxeeda oo isna galabta lagu qabtay muqdisho sayid cumar axmed maxamed warbaahinta suufi islaamic tv magaalada muqdisho